Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Ziad Ghanem from Dalmar Hospital. I would like to talk today about most common disease in السلام عليكم magacayga waa Dr. Ziad dhakhtarka daweynta carruurta ee isbitaalka Dalmar waxaan jeclaan lahaa inaan muuqaalkan ku sheego cudurrada ugu badan ee ku dhaca carruurta Soomaaliyeed waxaana ka mid ah infekshanada ku dhaca hawo-mareenka kuwaas oo ay ka mid yihiin oof-wareenka taas oo keenta dhibaatooyin caafimaad iyo dhimasho aad u badan waxaana ugu wacan in lala soo daaho baaritaanka iyo daaweynta xanuunka ee ilmaha fuuqbaxa sidoo kale wuxuu qayb weyn ka yahay dhimashada ugu badan ee carruurta iyadoo ugu wacan tahay biyo nadiif ah oo aanan la helin mar walba sidoo kale waxaa jira xanuuno looga hortagi karo talaalka sida teetanada, gowracatada, xiiq-dheerta iyo jadeecada. Dhammaan cudurradan waxa ay ku badan yihiin carruurta Soomaaliyeed ee ka yar 5 sano iyadoo ay ugu wacan tahay in aan la siinin ama aan loo dhameystirin talaalka. In this event we encourage people to vaccinate their children. Anagoo ka duulayna arrintaas waxaan waalidiinta ku dhiirigelinaynaa inay talaalaan carruurtooda. Nagu soo booqo xarunteena isbitaalka Dalmar ee kiiloomitir agagaarka isgoyska Banaadir ama naga soo wac lambarka gaaban ee 2666 hiigsigeenu waa caafimaadkaaga. And you are welcome anytime in our hospital. Thank you so much. Dalmar Specialist and Teaching Hospital. hiigsigeenu waa caafimaadkaaga.